kulanti wacan wanaagsan dadkaana daawanayo halkani waa Kalsan TV oo aan idinka soo gudbinayno qaybtii labaad ee buuggii uu qoray Faarax Maxamed Jaamac Awl ee magaciisu ahaa aqoon daro waa u nacab jacayl barnaamijkani oo sida aad la socoteen baan ugu magac darnay dhigtaadu ka war dheer ayaa waxa igala qayb galaya oo studio-ha ila jooga diyaarna u ah qaybtii labaad ee barnaamijkaasi Xasan Huruuse oo garabkayga bidix fadhiya qaybtan ayaa daawadeen waxaan ku soo qaadan doonaa safarkii dheeraa ee doonida ay ku soo galeen ama ay ku soo mareen badda Alimaax iyo Cawrala iyagoo ku soo ambabaxay magaalada Cadan markaasina uu soo socday xeebaha Xiis iyo Maydh safarkaasi ayaa lagu tilmaamaa sida buuggu uu qorayo mid kaftan reer magaal iyo reer miyi oo markaasi ka dhaxdhacay raggii doonidaasi la socday iyaga oo dumarkuna ama haweenkuna ay dhigta kala socdeen kaftankaasi aadka u xiisaha badnaa ee ka socday doonida dhexdeeda waxaabay lagu wada hadlay gabayadii iyo wixii qolada kale ay ku dhaliilaysay ama kula kaftamaysay ayaynu kaga hadli doonaa qaybtan waa hagaag Xasan Huruuse السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. doonida magaceeda maxaa loo jirta عاو doonida waxa loo oran subxaan waay waxay ka soo ambabaxday sidii aynu maalintii hore horeysiinay marsada cadmeed maalin ay bisha Maaris tahay 25 sanadkuna ahaa 1913 doonidaas rikaabkiisa raa horeynu u xusnay saddex habla aba ka mid ahaa iyo 12 rag marka laga reebo baxridii doonidaasi waxa ay ka soo shiraacatay halka maalinta hore marka waxa weeye hadaynu intii hore yara taabanay iyo sida kulankii Cawrala iyo Cali iyo deegaankiiba maanta waxaynu dib hore u sii muquranaynaa badweynta gacanka cadmeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Yaman maalinta ambabaxa markii wax yar la socdayba waxa bilaabmay xifaale habluhu waxa ay fadhiyeen oo loo balbaleeyay huuriga korkiisa oo dhowr talaabo u jiray goobta rag u fadhiyo oo asag xadda doonida markiiba xifaalihii wuxuu u bilaabmay si kadib dhaqso ah Nuur Ciise oo ah nin reer miyi magaalada Cadmeed safar ku yimi iyo Cali Nuur oo ku wareeray doonida oo dhinaca doonida kolba iska laadlaadinayo ka mantagaya ayaa Cali duray oo haasaawo yar ku gujeeyay oo yiri Nuur Ciise maxaa doonyahan iyo badan jaan ku keenay maad saaqa iyo haameeshaadii guud madar ku maashid ragga hore iyo is-adkeyntiisii iyo yaan laga lib helin waa taqaanay Nuur baa markiiba degdeg u baraarugay oo soo jilba xidhay oo soo fadhiistay wareerkiina ka bax Cali wuxuu ugu jawaabay waxa tahay mulxish reer magaala ilaahow yaa ku yiraa xoolo hoga kaliileed jooga iyo geelka reeba oo guula aroori dadnimadaadu waxay tahay dibadda ha soo baxday markiiba waa la kala saftay oo nuuxuudihii la oran jiray shirdoon sugulle ayaa Cali halka ka tiraabsaday oo yiri war calow Nuur Ciise xifaale la ekeyn meyside mahmaha iyo gabayuun buu kugu hafine mad faraha ka qaad Cali baa si kadisa oo dhaqso oo aan la filaynin wuxuu ugu jawaabay waxaad u haysataan reer magaalku inaanu suugaanta waxba ku lahayn balse ay dhageysta dabeedna wuxuu yiri gabay xanaf kulul oo loo wada riyaaqay habluhuna u mushxaradeen ragga doonta saarana sacab ku soo dhaweeyay ayuu Cali soo tuuro wuxuu yiri ilaa daacuflow reer miyaan doocna garanayn dab la shiday aroortii markuu daamanka isdhaafsho oo doobi caana ariyaha looga dalafsiiyo oo rubucu doondoon ku helay uga dambaysiiyo isagiyo duqdiisii markaa dawlad la ismoodiyo damdamtii iyo hangoolkii ma jiro dirire maayaan ninkii maalinta danulahow daaso hadalkaaga markaas baa Cawrali ishaysan weyday iyadoo hablaha dhex fadhida oo waxay tiri afka kuma go'o shalay ayaan hubsaday oo isha galiyay markuu doonida cagta soo saaray inuu yahay diric dhalay oo quruxda raganimo u dheer tahay anigu reermi iyo wixii la halmaala midna ma jecli caawana gabayga Cali iyo damdamta iyo hangoolka
ayaaba iga sii quusiyey waay aniga laftaydana waxaan u socdaa oo aabbahay ii soo dhoofiyey nin geel badan oo walaashay ka dhimatay in xigsiisan la ii siiyo oo reer baadiye ah aniguna way igu adag tahay nim aanan jeclaan oo aanan la hadal oo xiise iyo dareentoonna u hayn inaan marwo noqdo oo u guri galo saluugloo dhinac fadhiday baa waxay tidhi cawralahay jacaylku waa maxay aabbahaasoo ku odhan maayo markaad arrintaa hadal ka soo jeediso duco iyo habaar kala dooro cawralaa degdeg waxay ugu jawaabtay haddii ay halkaa soo gaadho waxaan odhanayaa habaarkaan doortay dabadeedna waxaan tegayaa shiikha maydh oo ka ducaysanayaa taas ayaa ka xoog badan habaar walba oo la sheego halka arrintu markay marayso maalintaana gabdhihii ay ku dheeraadeen sheekadii intay ku darsanayeen iyo hoosiga sagawaraysiga waxa jacayl yahay oo saluugli ay xiise badan u haysay maadaama ay sheegtay iyada laftigeeda in oday la siiyey beri hore qurbo ka soo noqday da'diisuna 70 gaadhay oo aan fool ku hadhin tima hadalkood ha joogay laakiin aabbaheed hunguri ugu xishay dabadeedna markuu muddo dhowr sano la isqabay uu tukubadiina intuu gabay dabka soo dul fadhiistay ay noqotay in gaadiidka la fuuliyo dabadeedna ay arrin noqotay markay damacdayna iska furto inay suuro geli weyday oo culimadii fiqiga baratay soo fadhiisatay oo la yiri maba afkaba kuma kala qaadi kartid waayo naakirad baa lagu qorayaa markaas bay waxay saluugle leedahay dumarka waxaan odhan lahaa ilaahay dadkiisu waa u simeeyay rag iyo dumar mana kala jecla waxay raggu gacanta sare ku heleen waa markii ay looxa inaga hor qaateen dabadeedna wadaadka qalin duuraha ee kitaab gaabka ahi uu kitaabka had iyo jeer ka dhex baadhay arrimo uu dumarka Soomaaliyeed ugu daran yahay oo ay ka mid tahay naakirada la i qoray maalinta xifaalaha hablo halka markuu marayo ayaa waagii sagliyay shiikh Araaye Ceelaabe oo ka mid ahaa dadkii rikaabka iyo doonta saara ayaa aadaankii subax ku dhuftay waa la tukaday awrale waxay tiri ragii baa inoo jeeda waagiina waa bariyo dilaacay sheekada jacaylka aan habeen dambe u daasan halka markay marayso waxa dhacday maalintaas doonidu way socotay maalin kulayl ah bay ahayd bisha Maaris 26 bay ahayd waa xilliga ku aadan in dhulka Soomaalida gugu ka du'o maalinta waxa jirtay dabayl hindi ah dooniduna si quman bay u soconaysay naaqoode shirdoon ayaa baxrida ku dhiirigeliyay inay qada sameeyaan oo waxaynu maraynaa gacankii cadmeed waa halkii ugu kalluunka macaanay dhulka kalluun inoo soo saaraan markiiba jalab waa la jilaabtay oo waxa la soo saaray dhowr tabadina baa la soo dhuftay halkaas baa lagu qaday nuur ciise ayaa intuu afka iyo sankaba duubay xagga u jeestay oo aan qadadii ka qayb gelin cali oo xifaalihiisa had iyo jeer u heelan ayaa yiri nuurow soo ma ogid ninkan kalluunka ifka ku cunin in aakhira afka loogu guro nuur dhagu ma dhigin markii cali qadadii la dhameystay baa nuur wuxuu yiri cali oo waxaad cuntay ma xalaal baa ma xaraan yaa bireeyay oo xalaaleeyay gabaygii xalayna waa ku taagan yahay ninka la yiraahdo nuur ciise oo inuu ka jawaabaa waa ku weynta markaas baa nuur wuxuu yiri gabay ku jawaabayo wuxuu yiri dayn qaate ereyada ay ka mid tahay meeshii nin ragi dabic ku maalayay danuunu cay goortuu qaxwaha dibinta saaraayo duuf lulaye goortuu kalluun labada daan buuxsho deeq iyo dagaal yaa nin raga lagu daryeelaayay doodana haddii loogu daro darajo weeyaane wax dulliya magaaliyo ninkii degalkeed waa joogay gabaygaas ayuu gabaygii xalay taagnaa kaga jawaabay habeenkaa iska dumay xifaalihii xalay mid lamida baa diyaar loo yahay cali wuxuu ka sheekaynayaa kalluunka iyo qiimihiisa markii uu sidaa u duray kalluunka iyo cunidiisa ninka la yiraahdo nuur ciise
cali marka wuxuu leeyahay wuxuu ka sheekanaya kalluunka iyo faa'iidooyinka lagu qabo iyo qiimihiisa gabay qiimo badan oo macaan badan ayuu arintaa kaga jawaabay oo uu leeyahay kalluunka colmo qaado oo cudur kuma dhaco oo waa hantida saboolka iyo faqiirku aanu kala lahayn ee loo siman yahay sallallahu nabigeeni yaa sood ku gowracay wuxuu nafaqo siinayaa jiir solmootigay badda saaxil saylac iyo berberatan iyo seehaabo waxa sariyo hoos noogu jira sidadii weeyaan ee Soomaali baan garan inay silic ku noolayd wuxuu dhiifi gelinayaa cali maax kalluunka cunidiisa habeenka la iska soo socay laakiin dabayshii fooraha baa durba bilaabatay doonida ayaa hadba waxa soo garaacaya hir iyo mawjad xoog weyn oo intuu heeraabka ku dhaco ayaa biyuhu intay kor u kacaan sadxadda imanaya markaas baxaaridu leedahay maawarad oo ah kelmad ay ku dhiiri gelin jireen rikaabkooda inaan bilaayo weyni jirin naaquuduhu ma ekaynin sakatiyaya wuxuu ekaanin tahluukooyin hore oo badeed ka soo nabad galay laakiin arrintu sidii way ka sii tagtay dabaysha isa soo tartay cirkii ayaa isa soo cuncunay fadba bari ka soo muuqday hilaaca iyo madkarabashada iyo onkodka ayuu isku daray goordhowna dhibicda ayuu saaray markay ahayd 11 iyo badhka daruuro biyo geliyay ayaa iba dooxmay oo doonida dusheedii soo furmay biyihii badda iyo kuwii cirka la kala garan waayay dakhalkii baa degdeg u soo jabay amuurtu way sii cakirantay salugla markiiba dumarkii ku tiri hablow arrintu caawa khayr badan ma muuqdee aan dardaaranno oo maxaynu ku dardaarmi anigu waxaan idin oran lahaa haweenku marka waxa la yiri doonidu degayso way isqabsadaan ayeenan isqabsan ee mid walba intaad qayliso ragga nin kamida hebelowde iyadoo cali iyadu madaxa ku haysa maryaha kan culusaynu sideenana hal la iska fududeeyo mid walba ay diric lahaad markaas baa waxa tiri salugla anigu taladaadu mid quman bay u eg tahay laakiin dardaaran kale garan maayee waxaad yeelaysaa geeladii haddii alla idin nabadgeeyo anigu aan meesha ku baxo waxaad ku tiraahdaa dumarka Soomaaliyeed waxaad uga sheekaysaa goblan waa geeri haween guur odayna waa geesaas haween haweeyo agteeda fadhiday ayaa anigu geesaas iyo waxaad ka sheekaynaysaa garan maayo hadalka awralana ma soo dhaweyn ilaahow hana mudxin oo dharka hanaga siibin maana caawa intaan maryahayga tuuro ragga dhex orda sanduuqeedii bay dhabta ku qabsatay deedna waxay ku sii dartay haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwaa awralaa waxay ugu jawaabtay mahmahda caawa waxaa ka beegnayd haweeyaay inaad tiraahdo dan iyo xarago isweydi hawshu way iska sii socotay salugli waxay tiri marka haweeyo markaad xiis tagtaan hooyaday waxaad ku tiraahdaan tab haruura ayaa islaanta dhool la yiraahdaa iyo madaal bariisa sonkora bay igu lahayde yaan aakhiro luxudka laygu gubina iga bixi iyadu intaasay ku dardaarantay arrintu iska sii adkaatay doontiina dakhalkii intuu go'ay ayuu biyaha muquurtay goordhowna cali baa wuxuu eegay nuur ciise dhinaciisa fadhiyo war nuurow waa ogaa inaadan dabaasha aqoone sidee arrin yahay markaasii warnacasiyow ha iga teg markaasuu wuxuu yidhi cali haddii guuldaradan oo kale dhacdo rag iyo dumar ay ku hor joogaan gargaarka iyo gacno fidinta dumarkaa leh sidaa igu ogow markaasuu warma kontonleyda baad ninkaygaa boqollaha ka dooratay oo baddaygaga dhaqaaqday markaasuu nuurow waa kuu soo noqonayaa ee ha ii urxumaanin haddii tii alla timaado sidii baa doontii laba u kala go'day cali xaggii dumarka intuu jaaha saaro u dabaashay isagoo raba inuu mid ka mid ah badbaadiyo baa markiiba waxa la kulantay awralo baxaa degaysa dhowr goorna biyaha milixleeda aan tuugtay oo la caliyow iqabo waa qabtay gacanta ayuu ku dhigay garabkiisa bidix buu saaray waa la dabaashay hir isdharbaaxaya oo aan laga geeyoon karin baa jira ciddii doonida saarayd nin walba badda gel wax lagu dambeeyana garan maayo dhowr iyo 50 saacadood oo dabaylo iyo hir iyo mawjad abu la soo dabaalanay ilaa uu xeebta xiis awrala soo gaarsiiyay
dabayshu soo dhawaadka waa ka go'day oo dabayshii dhacaysa iyo foorihii xoogga badnaa inta uu isbedelay roobkiina yareeyay oo qaaday ayaa dabayl la yiraahdo shamaal oo xagga xeebaheenna u socota ayaa soo dhacday badiina waa degtay markaasay iyagoo yara nasto sidii dhaama uu la soo dabaasho haddii xeebtu muuqatay ayay arkeen madaxyo dad oo taagtaagan waa la yaabay markaas waa markii ugu horreysay wada hadlaan wuxuu weydiiyey waxay tiri iyadu way garanaysay isagaa dabcan inuu yidhaha magacaa mawjad baa afka u buuxisay dhowr goorood aakhirkii la wada hadal lana soo dhowaa war dadkii doonta maxaad malaynaysaa wadaadkii yaag fadhiyay Nuur Ciise reer miyiga isagu ku gal bay ila tahay ayaa cali ku jawaabay haddii la soo muuqday Nuur iyo dadkii in ka mid ah ayaa xeebta taagan niman fardoolaya oo wataan ku sheegay cali inuu daraawiish ka mid ahaa oo sahan u ahaaye oo iyaguna xeebaha bari sahminayay iyo magaalooyinka ayaa gurmadkii dadka badbaadinayay ka mid noqday waa la soo saaray awrala iyo cali saluugla oo meesha taagan baa markiiba mariyay la sugaysa ila watii xalay la dardaarminaan dhar badan la xidhnaanayne inay go ku duubto oo ku qabato waa la soo baxay Nuur baa ka mid noqday dadkii soo badbaadinayay isha qacla isku siiyay war Nuurow sidee ku soo baxday nin alla leh ha u dardaar warin buu halka markay soo gaadhay waxa dadkii martidii halka ka soo nabad galay doonida iyo qarraqankii la kaxayay magaalada la geliyay Awralna Cali waxay ku tiri martibaad noo tihiin cid walba waa la kaxayay waa la marti geliyay magaalada xiis baa la geeyay habeenka halkaas lagu bariyay maalintii dambena waa la soo kacay dumarku raxaabadii hore uma soo kicin raggu iska soo toos raggii fardoolayda ahaa ee daraawiishka yimiye Cali la is wareysay maanta waxaan filayaa inaynu halka ku joojin doono xilqadatan kana si aan baqaadi doono iyadoo Awrala jacaylkii uu sii dhex qaaday oo abaalkaana hilmaamila habeenkii horena raganimo dooro Cali ku jirta isha gelisay marka isha la isku dhuftaba malqabadeedii milmilka ahayd ee xariirta ahayd intay gacanta midig ku soo qabato foolasha ku qabsanaysay xishooda awadii hoos uga jeesanaysay marna isha ku xadaysay ayaa maantana waxa la joogaa xiis waa xilqadeena saddexaad ayaynu ugu tagi doonaa halkaa aad baad u mahadsantahay xasan huruse bal inaga lafteenu dadkana daawanaya aynu qaraacankii doonida iyo dadkii dhimanayay aynu halkaa ku dejino xeebta barnaamijka qaybta saddexaad ayaan ku soo qaadan doonaa oo aynu ka ambabixi doonaa xeebta iyo wixii ka dambeeyay dhex maray Alimaax iyo Awrala daawadayaal tan iyo kulankeena dambe oo ah qaybta saddexaad oo toddobaadka soo socda aynu ku soo qaadan doono sheekada oo sii socota aniga iyo xasan huruse waxaan ka tegaynaa sida iyo nabad geliyo